soo dhawaada kuna soo dhawaada channelka Roman Media. Magaciiguna waa Abbas Mustafa. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa warbixin yar oo ku saabsan dalka Qatar. Inaad like sarto videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Qatar waa dal qani ah oo saameyn ballaaran ku leh mandaqada uu ku yaal. Waa dalka ugu qanisan caalamka markii laga eego dakhli sanadeed soo gala dadkiisa. Sidoo kale waxa uu leeyahay geedka gaas ee saddexaad ee caalamka ugu weyn. Waa dal horumar ballaaran ka sameeyay dhinacyada warbaahinta, caafimaadka, waxbarashada iyo dhammaan dhinacyada kale ee noolaha. Dalka noocaas ah gabigiisa waxaa laba jibaar wax ka badan ka weyn baaxad ahaan gobolka Nugaal. Tirada dadka wadanka u dhashay waa 320,000 wax ka yar. Waa in ka yar inta ku nool magaalada Gaalgacyo ama magaalada Beledweyne ama Burco. Gudaha Qatar dadka wadanka u dhashay waxay ka yihiin 12%. Wax ka yar halka inta soo hartay ay yihiin soo galooti, shaqo soo doonti. 94 dadka shaqeeya ee wadanka waa ajaanib. Dadka sidaasi oo dadka yar ahna oo dhulka yar waa mid ka mid ah kuwa saameynta ballaaran dunida ka sameeyay. Waa dal awood ballaaran ku leh siyaasadda wadamada Soomaaliya, Liibiya iyo dalal badan oo Carbeed. Waxa uu sahlay gaaridda heerkaas waa dhaqaalahooda oo ka yimid badankii shidaalka ku jira dalkooda. Ogsoonow in dal laba jibaar ka yar hal gobol oo Soomaaliya dhaca kana dad yar hal magaalo oo Soomaali dhacda uu maanta daaha dabadiisa ka maamulaya siyaasadda Soomaaliya.